الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan soo booqday walaal ka mid ah walaalihii hadda ka hor loo gurmaday dadka loo gurmaday oo wax badan la garab istaagay way fara badnaayeen laakiin alxamdulillah maanta waxaan la kulmay Caamir Muuse Siyaad oo ah walaal ku waxyeeloobay qaraxi ka dhacay waxa weeyaan magaalada Hodan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho lug baa ku go'day mid kalena way ku burburtay nin dan yar oo aad iyo aad wuxuu ahaa duruuf culus ay ka muuqato walaalihii ka qayb qaatay meel kasto ay joogaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo gurigii waa loo bedelay gurmad caafimaad oo dibadda ah waa loo qaaday 6 bilood buu Hindiya ku maqnaa lugtii labaad waa la jaray alxamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku mahadsan ثم walaalihii juhdigaas iyo dadaalkaas bixiyay meel kasto ay joogaan wuxuu jecelaystay inuu mahad celiyo walaalahaas noloshiisi wax badan ayaa laga bedelay haday tahay xaqi nolosha haday tahay gurigii haday tahay caafimaadkiisi oo loo gurmaday waxa laga yaabaa marka $1 aad bixisay ama $100 aad bixisay guri dhan inay dhistay ilmihii waxbarashay haystaan nolol bay haystaan alxamdulillah aad u faraxsan yahay waxay tusaale u tahay dadka hadii sidaas oo kale loo garab istaago oo wax yar la isku dardaro wax badan ayay noqonaysaa Ilaahayna subhanahu wa ta'ala dad badan ayuu ku badbaadinayaa mar walba aynu ku didaalno inaan dadkaas iyaga ah oo dhibaataysan aynu garab istaagno ilmihiisa ma sha Allah waxa kamid ah ninkan magacaaga adariish Abdullah Caamir marka wuxuu asaga laftiisu jecel yahay inuu u mahad celiyo walaalihii garab istaagay Abdullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وهرير عامر موسى مشان هقوم ماد علينا تذكي جورجن ورثة عبينا عافمات كهندي جبد وقاعدة نولشان أحبدنا نقبضلي وعن دينا إلى أن بركة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وعمانتي فرصة هلي أنا هل كان هو مهد عليه وعليه مركي برا مصيبة وقول عليه يسوق المذي kuwaasi oo aan iga harin ilaa inta hadda caafimaad taan ma keenayo kuwaas oo macnaha aad saaciday markaan dalka joogay markii aan dibadda u baxay oo laga qaaday India waxaan markaa rabaa maadaama maanta fursad aan u helay inay yimaadeen Sheekh Maxamed iyo dhalinyarada kale group kale oo la socday inaan halkan uga mahad celiyo dadkii walaalaha ay soo gurmaday oo ayagu ii muujiyay inaan macnaha aan ahay nin wax walba u heli kara qaarkoodna aysan wali iga harin waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo waxaan leeyahay Allah awlaadiina kuwa barakeysan oo saalix Allah ka gariyo adikana wixii aad baxsateen wax ka fiican oo aad ugu muhiimsan ilaahay kugu bedelo cid kastoo dib ku jirta dibkayga haysto qolan dib haysan ma leh cid kastoo dib haysto dibkay ay ka walwaleyso ilaahay ha ka dulqaado wax qeyrna lagu bedelo walaalaha mana muslimiinta ay soo gurmada waxaan ku sheegay la socodsiinayo kale in bixitaankii Hindiya la qaaday aytaankii aanay lugtii midii gooneed hore gooneed midii kale ayadana wax laga qabo waayay ayna fudaatay markaas in la jaro oo la tikala la simo alxamdulillah laakiin adduunyada la joogayo waxaan kaloo raacanayaa in waqtigan iyo wixii ka dambeeyay aan diyaar u ahay qolo kastoo markaas oo dib ku yimaado ama problem yimaado inaan wax ka saacido laftaydu oo aan ka qayb galo walaalaha gurmadka lamarona ka noqdo assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wuxuu ahaa duruuf culus ay ka muuqato walaalihii ka qayb qaatay meel kasto ay joogaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo gurigii waa loo bedelay gurmad caafimaad oo dibadda ah waa loo qaaday 6 bilood buu Hindiya ku maqnaa lugtii labaad waa la jaray alxamdulillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku mahadsan ثم walaalihii juhdigaas iyo dadaalkaas bixiyay meel kasto ay joogaan wuxuu jecelaystay inuu mahad celiyo walaalahaas noloshiisi wax badan ayaa laga bedelay haday tahay xaqi nolosha haday tahay gurigii haday tahay caafimaadkiisi oo loo gurmaday waxa laga yaabaa marka $1 aad bixisay ama $100 aad bixisay guri dhan inay dhistay ilmihii waxbarashay haystaan nolol bay haystaan alxamdulillah aad u faraxsan yahay waxay tusaale u tahay
dadka haddii sidaas oo kale loo garab istaago oo wax yar la isku dardaro wax badan ayay noqonaysaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala dad badan ayuu ku badbaadinayaa mar walba aynu ku dadaalno inaan dadkaas iyaga ah oo dhibaataysan aynu garab istaagno ilmihiisa maasha allah waxaa ka mid a ninkan magacaaga adariisha cabdullaahi caamir marka wuxuu asaga laftigiisu jecel yahay inuu u mahad celiyo walaalihii garab istaagay cabdullaahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وهرير عامر موسى مش أنا هقوم أدعي تذكي جورج ناقصي عبان عافمات هندي دبده وقاعدة نولشان أحبدنا قبدلي وعندنا إلى أن بركة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله waxaan maanta fursad helay inaan halkaan uga mahad celiyo walaalihii markii musiibadu ugu dhacday ii soo gurmaday kuwaasi oo aan iga harin ilaa inta hadda aan caafimaad taam ka helayo kuwaas oo macnaha aad ii saaciday markaan dalka joogay markii aan dibadda u baxay oo laga qaaday India waxaan markaa rabaa maadaama maanta fursad aan u helay in yimaadeen Sheekh Maxamed iyo dhalinyarada kale group kale oo la socday inaan halkaan uga mahad celiyo dadkii walaalaha ay soo gurmaday oo ayagu ii muujiyay inaan macnaha aan ahay nin wax walba u heli kara qaarkoodna aysan weli iga harin waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo waxaan leeyahay Allah awlaadiina kuwa barakeysan oo saalix Allahin kaga dhigo adikana wixii aad baxsateen wax ka fiican oo aad ugu muhiimsan ilaahay kugu bedelo cid kastoo dhib ku jirta dhibkayga haysto qolan dhib haysan ma leh cid kastoo dhib haysto dhibkay ay ka walwaleyso ilaahay ha ka dulqaado wax qeyrna lagu bedelo walaalaha mana muslimiinta ee isu gurmada waxaan ku sheegay la socodsiinayo kale in bixitaankii Hindiya la qaaday aytaankii aanay lugtii midii gooneed hore gooneed midii kale ayadana wax laga qabo waayay أنا فضلت إن كاسين الله جرا الله تكلا الله اسمه الحمد لله لكن الدنيا اللي جوايو وحنا كلهم رعنا إن وقت يعني يحكي كذا بي عند يارو هاي قلك الصوم كاس أو بكوي ماذو أما problem ماذو أنا وحكي سعيد لفت يدو أو أنك غيب قالوا ولا يقول متك لما رحنا كنا السلام عليكم ورحمة الله